I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to Dr. waxaan jeclahay inaan aad ugu mahadnaqo Dr. Robert Kevin madaxweynaha Machadka Heritage ee igu marti qaaday maanta inaan halkan idin kala hadlo. Machadka Heritage waxa uu kaga horeeyaa oo kaga magac dheer yahay macaadada kale ee siyaasadda Mareykanka saameeya fahankiisa baaxadda leh ee uu ka qabo ama uu u leeyahay aragtida siyaasadeed iyo dhaqaale ee Afrika. taasi awgeed maanta sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinkula weydaarsado afkaar ku saabsan Somaliland iyo halka ay u socoto martida kala duwan ee maanta halkan joogta. Ladies and gentlemen, today the whole world is a laser focused on the tragedy in Ukraine. Marweyn maanta indhaha adduunku waxa ay si baaxad leh ugu jeedaan dhibaatooyinka dagaalada qaraxyada iyo qaxootiga waliba dalkaasi Ukraine oo ah qaxootigii ugu badnaa ee ay qaaradda Yurub aragto tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. dhibaatooyinka kala duwan iyo masiibooyinka soo gaaraya shacabka Ukraine waa mid aynu indhaheena si joogto ah aynu uga daawanayno warbaahinta kala duwan ee caalamka ee toddobaadkiiba 24 saacadood wararkooda inoo soo tabinaya. annaga ka Soomaaliland ahaan waxayna xasuusinaysaa dhibaatooyinkii iyo xasuuqii loo geystay shacabkayga 33 sano ka hor. waa masiibo iyo xasuuq aan anigu goobjoog u ahaa taasi oo ay u geysteen shacabka reer Somaliland maamulkii ka talinayay Muqdisho ee dictatorka ahaa kaasi oo sababay in malaayiin shacabka reer Somaliland ama ay noqdaan qaxooti wadamada jaarka ah ama ay gudaha dalka dib ugu barakacaan. waanu la dareemi karnaa xanuunka iyo dhibaatada shacabka Ukraine maanta ay dareemayaan sababtuna waxay tahay inaanu taamid lamida soo aragnay ee shacabka reer Somaliland masiibooyinka iyo xasuuqii ku dhacay oo kaga duwanaa waxay ahayd iyadoo si joogto ah aan wararkooda looga tabinaynin mareegaha wararka ee kala duwan ee adduunka iyo baraha bulshada balse waxa hubaala in sawirada iyo xumaantii xasuuqa ee shacabka reer Somaliland loo geystay aanay ahayn mid marnaba ka baxaysa xusuusta iyo maskaxda shacabka Somaliland. Ladies and gentlemen, I come here before yesterday to tell and to talk about my country's progress, challenges and the role our country plays in the security, stability and economic development. mudanayaal iyo Marweyn maalinkii shalay ahaa waxaan u yimid dalka Mareykanka si aan idinka warbixiyo horumarka uu dalkaygu sameeyay caqabadaha hortaagan iyo waliba doorka muhiimka ah ee uu dalkaygu ka ciyaari karo horumarka dhaqaale ee dalka gudahiisa geeska Afrika iyo waliba qaybaha kala duwan ee adduunka. muhiimadda degalka Somaliland iyo waliba danaha ka dhaxayn kara Jamhuuriyadda Somaliland iyo wadamada ay isku aragtida yihiin. ugu horeyn xaaladda amni ee wadanka Soomaaliya waa mid maalinba maalinka ka sii dambaysa ka sii daraysa taasi oo tusaale cad oo muujinaya u ah in aanu horumar badan sameyn siyaasadda ah in si toos ah loola xidhiidho xarunta Muqdisho ee wadanka Soomaaliya oo toos loogala hadlayo arrimaha ummadda masiiriga ee Soomaalida. ka warqabtaan Mareykanku waxa uu dib u furay xafiiskiisii ku yaalay Muqdisho 2013 ka duulaya in dib loo abuuro xarun dhexe ama maamul dhexe oo laga maamulo Muqdisho. ay rajo qabeen inay dib u soo celin karaan ama ay dib u mideyn karaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida iyo qabaylka kala duwan shacabkoodana ka ilaalin karaan wadamada jaarka ana ay ka siin karaan amni lawbo. sida noocaas ahayd ma ahayn mid lagu meel maray ama lagu guuleystay oo aynu hadlayno mashruucaasi ma aha mid ay ku guuleysteen xarunta Muqdisho ee badhitaarka iyo xiriirka joogtada ah la leh qaybaha kala duwan ee bulshada joogta ah ayaa beesha caalamku ay u siineysay taageero dhaqaale mid siyaasadeed mid diblomaasiyadeed iyo mid ciidan oo xoog leh balse taas ma noqon mid meel marta. nasiib xumo 10 sano kadib maanta niyad wanaagii ay qabeen saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ee ugu weeyahay Mareykanku
taageeradii ay u qabeen dowladda Soomaaliya iyo dowladnimadii ay dhisayeen maaha mid ku guuleysatay inay ka shaqayso xayndaabka dhaafsiisan madaxtooyada fila Soomaaliya ee Muqdisho weli waa meesha ugu weyn ee ay ka soo burqanayaan amni darrada ugu badan ee geeska Afrika maanta ay wajahayso. Horumarada dhaqaale ee maanta ka socda geeska Afrika oo ah mid amnigiisu uu aad u adag yahay maanta waxa ay si toos ah u arkayaan in Somaliland qaran ahaan ay tahay dal la isku halayn karo siyaasad ahaan iyo amni ahaanba taasina ay noqon karto goob ay wadamada Somaliland ay isku aragtida ka yihiin ay horumar dhaqaale iyo horumar siyaasadeed oo baaxad leh ay ka wada sameyn karaan. Amniga geeska Afrika muddooyinkii u dambeeyay waxa uu ahaa mid khalkhal u hareeyay khalkhalkaas oo ka imanayay dagaalada sokeeye ee ka dhacayay geeska Afrika iyo waliba howlgallada ay ka fuliyaan unugyada argagixisada ee geeska Afrika degani. Waxa intaasi u dheer abaaraha saameynta xooggan ku yeeshay geeska Afrika iyo waliba ayaxa iyo isbeddelka cimilada oo intuba caqabad ku noqday amniga geeska Afrika. baabadbadnabku waxa uu noqday mid muhiim u ah ganacsiyada xooggan ee u kala gudbaya qaaradaha kala duwan iyo badweynta India iyo ta Atlantikada oo saliidda caalamka u kala gooshta ayaa marin u ah baabadbadnabka iyo waliba ganacsi xooggan oo u dhaxeeya qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Midda uu leeyahay baabadbadnabku waxa tusaale ka ah in quwadaha waaweyn ee caalamku ay saldhigyo military ka furanayaan geeska Afrika iyo sidoo kale in ciidamada badaha ee wadamada u waaweyn adduunku ay ku soo fidayaan badda cas. Kaashiga xooggan ee dhex maraya quwadaha adduunka sidii looga hortagi lahaa in ay burcadbadeedku soo noqoto degalkaas ama baabadbadnabkuna uu u noqon lahaa mid nabdoon oo xasiloon. Quwadaha waaweyn ee adduunku ay ku hirdamayaan waa mid sii socon doona mustaqbalka dhow. taa laga duulayo dowladda Mareykanku waa inay taageero xooggan ay u muujiso amaba ay siiso dowladaha dimuqraadiyaddu ay ka hirgaleen ee ku yaala gobolkaasi caqabadaha badan iyo xasiloonida badan ee amni u yaalo. Somaliland waxa ay xudun muhiim u tahay kala gudubka ama kala rogga xamuulka adduunka. dib u ballaadhinta xooggan ee lagu sameeyay dekedda Berbera iyo dib u furka loogu sameeyay airportka Berbera iyo casriyeynta lagu sameeyay wadada weyn ee corridor-ka ah ee ganacsi ee Somaliland ku xidhi doonta wadamada Jaarku dhammaan waxa ay siinayaan Somaliland fursado ay qayb kaga noqon karto ganacsiyada kala duwan ee u kala gooshaya adduunka. waxa aanay noqonaysaa mid u diyaara inay noqoto xudun xamuulka adduunka iyo Afrika uu ku kala wareegi karo. Juuntii sanadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladda Jamhuuriyadda Somaliland iyo DP World ay xadhiga ka jareen qaybtii koowaad ee mashruucii horumarinta dekedda Berbera iyadoo la dhammaystiray qaybtii koowaad ee fidinta dekedda Berbera ee terminaalka lagu kala wareejiyo kontiinarada xamuulka. taasi waxaa ka dambeeyay in bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi ay DP World iyo xafiiska kaalmada ee wadankaasi Ingiriisku ay ku dhawaaqeen dhaqaale xooggan kaasi oo dib loogu sii casriyeynayo dekedda Berbera iyadoo looga gool leeyahay in la ballaariyo baaxaddeeda ama awooddeeda ganacsi ee ay la yeelan karto wadamada Jaarku. taasi maalgashi ee maanta Somaliland ay haysato iyo iyada oo wadamada Jaarkeeda hareeraha ka xiga ay dhibaatooyin badan ka jiraan waxay Somaliland ka dhigaysaa mid xasiloon oo la isku halayn karo noqon kartana xudun ganacsi oo isku xidhi karta Afrika iyo adduunka intiisa kale. baradaas saddexda ah ee Berbera ka socda maanta waa qaar indhaha caalamka tusaya ahamiyadda ay Berbera iyo Somaliland ba u leeyihiin isku xidhka ama horumarinta dhaqaalaha Afrika intiisa badan. waxaana ay door muhiim ah ka ciyaari karaysaa fidinta ganacsiga qaaradda Afrika ay la leedahay adduunka intiisa kale. Somaliland and Somalia. Somaliland dialogue and Somalia. The Somaliland-Somalia dialogue started with the London Conference. Hadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya bilowgoodu waxa uu ahaa shirkii lagu qabtay magaalada London ee wadanka UK 23 bishii Febraayo 2013. qodobka 6
waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi waxa ay sheegayeen ama waxa uu u dhignaa in beesha caalamku ay aqoonsatay inay muhiim tahay inay caawiso nooc kasta oo wada hadal ee Somaliland iyo dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo dawlad kasta oo taasi bedeshaaba ay ka yeelan karaan si ay u xaqiijiyaan mustaqbalkooda ama xiriirka mustaqbal ee ay yeelanayaan muhiimka ah ee ay tahay inaynu halkan kala baxno ayaa waxa ay tahay in loo baahnaa in la xaqiijiyo ama kulamadaasi ay dhalaan xaqiijinta xiriirka ka dhaxaynaya Somaliland iyo Soomaaliya iyadoo taasi laga duulayo waxay ahayd wada hadalladaasi inay saldhig u noqdaan in la cadeeyo maqaamka Somaliland ay yeelanayso in ka badan 9 shir oo la qabtay intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2020 ma ay dhalin in la xaliyo qodobka ugu weyn khilaafka ka dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya oo ah maqaamka Somaliland ay yeelanayso nasiib xumo lagama gaarin isfaham siyaasadeed oo labada dhinacba ay heshiis ku yihiin qodobadii farakutiriska ahaa ee isfahamka siyaasadeed laga gaadhay ee ay Somaliland iyo Soomaaliya ka gaadheen nasiib xumo kuwa laftirkoodu ma ay noqon kuwa hirgala taasi oo ay sababteedu lahayd Soomaaliya 10 sano ee wada hadalladu ay socdeen Soomaaliya marnaba ma ay tusin inay dan ka leedahay amaba ay daacad u tahay in la galo wada hadallo dhaba oo u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya xaqiiqa ah in wada hadalladii ay lahaayeen labada dhinac ay Soomaaliya uga faa'iideysatay inay ku weeqdo jamhuuriyadda Somaliland iyo jiritaankeeda abuuraysa siyaasado wiiqaya ama hoos u dhigaya qaaraanka ay Somaliland ka helaysay beesha caalamka iyo horumaradii dhaqaale ee Somaliland soo kordhiyay haddii muddo 10 sano ee wada hadallada labada dhinac ay soo socdeen shacabka reer Somaliland waxay aaminsan yihiin in wada hadalladaasi ay fashilmeen oo aanay gaadhin ujeedooyinkii loo aasaasay sababta ay shirarkaasi u fashilmeen dhammaantood ay dusha u saaran yihiin Soomaaliya mar walba si joogto ah ula imanaysay tallaabo wiiqi kara horusocodka iyo geedi socodka wada hadallada labada dhinac si joogto ah isaga indhatiraysay heshiisyada farsamo ee la gaadhay haddii wada hadalladu labada dhinacba ay noqdeen kuwa wiiqmay oo aan halkii loo waday iyo ujeedooyinkii laga lahaa ka mid dhalin iyadoo sababteedu u weyna ay lahayd Soomaaliya oo marnaba aan daacad ku noqon geedi socodka wada hadalladaasi shacabka reer Somaliland waxay u arkaan inaanay cadaalad ahayn in lagu xiro wada hadallo fashilmay lahayna rajo lagu soo celin karo oo si dhaba looga wada hadli karo arrimaha miiska yaala ee masiirka ka turjumaya tahay in la rumaysto in hawl 10 sano lagu gaari kari waayay hadda la isku qanciyo in sanad ama 2 sano gudahood lagu dhamayn karayo waxa ay aaminsan tahay in aanu midho dhal lahayn ama aanu rajo lahayn soo noqodka wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya sida darteedna ay diyaar u tahay inay qaado talaabo kasta oo ay ku gaarayso hiigsigeeda iyo himiladeeda ah inay noqoto qaran madax bannaan caalamka qaybihiisa kala duwan waxa saaran waajib mabda'iyan moral taasi oo ay ku qasban tahay inay taageerto ictiraaftana jamhuuriyadda Somaliland iyo jiritaankeeda the merits and promise of closer US Somaliland collaboration in fact this chapter has already begun from regional security to democracy promotion haddii aan ka hadlo waxa laga dhaxri karo wada shaqayn ay yeeshaan Mareykanka iyo Somaliland waxay tahay xaqiiqada jirta in xiriirka Somaliland iyo Mareykanku aanu ahayn mid hadda bilaabmaya oo yahay mid mar hore bilowday waxaana muujinaysa taasi in ujeedooyinka uu Mareykanku ka leeyahay geeska Afrika hadday tahay mid amni hadday tahay kobcinta dimuqraadiyadda iyo kobcinta dhaqaale ay dhammaan yihiin mid ay ka midaysan yihiin ama ay aragti wadaag ka yihiin Somaliland muddooyinkii u dambeeyay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed haddii ay noqoto kulankii wasaaradda arrimaha dibadda ee wasiirkeedu hogaaminaya ay ku yimaadeen Washington iyo kulankii ka dambeeyay ee saraakiisha ka socota Kongareeska Mareykanku ay ku soo booqdeen Somaliland dhammaantoodba waa kuwo weji cusub u furaya calaaqaadka u dhaxeeya Somaliland iyo Mareykanka dhammaan dhaqdhaqaaqyadaasi waa qaar aan ku laab qabowsanayo haddii la rabo in si dhab ah wax looga qabto cawaaqibka amni iyo horumarka dhaqaale
iyo horumarada siyaasadeed ee aragti wadaagga ay ka yihiin Somaliland iyo Mareykanku waa mid muhiim ah ka dhigaysa waliba in xiriir joogto ah oo toos ay yeeshaan Mareykanka iyo Somaliland waxaana saldhig adag u noqon karta xiriirkaasi ay yeelan karaan Mareykanka iyo Somaliland in la helo xafiis diblomaasiyadeed oo dawladda Mareykanku ay ka furato Somaliland wadamo fara badan oo ay ka mid tahay Ethiopia Ingiriiska Denmark Taiwan Turkiga iyo Imaaraadka ayaa haatan xafiisyo ku leh caasimadda Somaliland ee Hargeysa la joogaa waqtigii Mareykanku ku biiri lahaa liiskaasi xafiisyada ku leh Somaliland kulamadaasi joogtada iyo furitaanka xafiiskaasi Mareykanku uu ka furan doono Hargeysa waxa ay saamixi doontaa in wada shaqayn joogto ah ay Mareykanka iyo Somaliland ka yeeshaan arrimo muhiim ah haddii aan qayb ka tilmaamo waxyaabahaasi ay iska kaashan karayaan labada dhinac iyo waliba waxyaabaha Somaliland ay ku caanka baxday taariikh horena ay ku leedahay wanaageeda iyo muujinta ay muujin karto ama ay tusi karto qaybaha kala duwan ee caalamka inay tahay saaxiib la isku haleyn karo idinku sheegay Somaliland waxa ay ka guuleysatay dhibaato kasta oo amni oo shacabkeeda gudaha dalka ka soo gaari karaya iyo waliba baddeeda dheer ee badda cas ciidamadeeda xeebuhu waxa ay gacan saar joogto ah la leeyihiin boqortooyada Ingiriiska si loo hubiyo in gacanka cadmeedu yahay mid amnigiisa la isku haleyn karayo oo ganacsigu uu si nabad ah uga dhex gooshi karayo aan wada shaqayn joogto ah la leenahay qaybaha kala duwan ee laamaha adduunka sidii looga hortagi lahaa tahriibka iyo waliba aftuubka qasabka ah ee dadka lagu kaxaysto waa talabaade dib u dhiska iyo casriyeynta lagu sameeyay dekedda Berberi waa mid soo kordhinaya adeegyo casriya iyo hanaan casriya oo ay Somaliland ku gaarsiin karto adeegeeda logistikada qaybaha kala duwan ee Afrika waxaanu aad ugu faraxsanahay danaynta ay dawladda Mareykanku danaynayso dekedda Berbera waxaan rajaynaynaa inaanu sii wadno wada hadalladaasi anagoo rajaynayna inay noqdaan kuwo midho dhala oo keeni kara horumar ballaaran oo lagu sameeyo dekedda Berbera si ay u sii horumariso adeegeeda ganacsi iyo waliba iskaashiga dhinaca amniga ee geeska haddii aan ka hadlo dhinaca maamul wanaagga ee Somaliland dimuqraadiyadda ka hirgashay Somaliland waa ta kaliya aan idinku celiyo mar labaad waa ta kaliya ee sida mugala uga hirgashay geeska Afrika waxaanay tusaale u tahay wadamada geeska iyo shucuubta ku dhaqan wadamada geeska ee danaynaya ama maruu rajaynaya inay gacmahooda ku soo doortaan hogaankii midayn lahaa amaba hogaamin lahaa tankii sano ee u dambeeyay Somaliland waxa ay si weyn u xoojisay hay'adaheeda ka shaqeynaya doorashooyinka iyo waliba dhaqankeeda ah in si xilkas ah oo xasiloon oo nabad ku dheehan tahay loola kala wareego maamulka qirayna inay jiraan meelo u baahan inaanu xoojino si aan u hubino in hanaanka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ka hirgalay uu yahay sidii ugu wanaagsanayd anaga go'an in anagoo kaashanayna shuruucdeeda gudaha aanu xoojino doorka ay haweenku ku leeyihiin hanaanka siyaasadeed iyo kuraasta la soo doorto oo nidaamka dimuqraadiga lagu soo doorto ee dalka wada kasta iyo hanaan kasta oo ay taasi suuragal ku tahayna waan ku hirgelinaynaa ilaan wax badan ayay tiri kartaa wadamada aanu jaarka nahay ama kuwa caalamka ee raba inay kubciyaan hanaankooda dimuqraadiyadeed hadii ay noqoto hanaanka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo hadii ay noqoto sidii loo hubin lahaa daacadnimada xubnaha gacanta ku haya doorashooyinka iyo waliba gudiyada kormeerka ah ee kormeera hanaanka doorashooyinka ee Somaliland in ka badan 20 sano oo khibrada ayay arrimahaasi u leedahay waxaanu soo dhaweynaynaa in dalka Mareykanka iyo waliba ururada bulshada ee Mareykanku ay kala shaqeeyaan Somaliland sidii loo sii horumarin lahaa geedi socodka hanaanka doorashooyinka ee Somaliland iyo sidii loo sii horumarin lahaa hay'adaha ka shaqeeya doorashooyinka dhibaatooyinka amni xumo ee ka jira geeska Afrika waa mid khalkhal gelinaya geedi socodka dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga ee Somaliland iyo geeska Afrika guud ahaan ay Somaliland gaadhay maaha qaar la dhayalsan karo ama la yareysan karo dawladda aanu saaxiibka nahay ee Mareykanku arrinkaasi waa ay dareensan tahay
waanan ku faraxsannahay xiriirka iyo wada shaqaynta joogtada ah ee aanu la leenahay dowladda Mareykanka balse waa mid aynu ka sii wanaajin karno haddii Soomaaliland iyo Mareykanku ay gacmo xoog leh isku qabsadaan way ka adkaan karaan dadka khalkhal gelinaya ama cid kasta oo khalkhal gelinaysa amniga iyo dimuqraadiyadda geeska Afrika laabooyin badan ayaa loo qaadi karaa sidii aynu arrimahaas oo dhan u xaqiijin lahayn tallaabo kasta oo ay Soomaaliland qaadaysana waxa meel uga qoran oo u go'an inay tahay mid ku hagaysa sida ay caalamka uga heli lahayd اعتراف بوحة Somaliland qarannimadeeda oo la ictiraafa waxa ay door weyn ka qaadan doontaa sidii loo heli lahaa amni xasiloon iyo geeska Afrika oo dhaqaale ahaan barwaaqo soorana ka duulayna khibrada iyo waayo aragnimada aanu u leenahay sida looga gaashaanto amaba loo dhiso amni lagu adag ku taagan adigoo jooga geeska Afrika ama goob colaadu ay hareeyeen wadada inaga horeysa waa mid aad u dheer laakiin waxa aan kalsooni buuxda ku qabaa annagoo ku kaashanayna amaba ku tashanayna taageerada Mareykanka inay yihiin wadooyin ama ujeedooyin la xaqiijin karayo ta ugu dambaysa ee Somaliland ay rabto inay xaqiijisaana waa inay tahay qaran madax bannaan oo calankeedu uu ka babanayo adduunka sovereign and democratic Somaliland country. Thank you very much for your attention.